Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada kanaalka Daruuraha. Waxaa sanad walba Soomaaliya laga xusaa maalmaha xorriyadda ee 26 Juun iyo 1 Luulyo oo ku aadan maalmihii ay xorriyadda heleen gobollada waqooyiga oo ka xoroobay Ingiriiska iyo gobollada koonfureed oo iyaguna ka baxay gacantii Talyaaniga. Xaflado arrimaha ku saabsan ayaana lagu qabtaa meelo kala duwan. Tusaale, dowladda hoose ee Xamar iyo madaxtooyada Villa Soomaaliya waxaa habeenada qiimaha leh lagu qabtaa munaasabado lagu xusayo sanad guurada ka soo wareegatay markii ay Soomaaliya xorowday. Waxaana badanaa xafladahaasi ka soo qayb gala madaxda ugu sarreysa ee markaa talada haysa sida madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, guddoomiyeyaasha aqalada sare iyo hoose, saraakiil iyo wasiirro. Kolka ay halkaa taagan tahay ayaa waxaa markaa imaanaysa su'aal ah: aaway madaxweynayaashii hore, duqowdii iyo waayo-aragyadii dalka, saraakiishii hore ee da'da ah inta nool, madaxda xisbiyada mucaaradka, taariikhyahanada iyo qorayaasha Soomaaliyeed, iyo dhammaan inta magaca ku leh Soomaaliya ee weli nool? Maxaa loogu casuumi waayey munaasabadaha xuska 26 Juun iyo 1 Luulyo? Dowladihii isxigxigay ee ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee dalka waxaa madaxtooyada Soomaaliya si gaar ah loogu qaban jiray, welina lagu qabtaa dabaaldegga munaasabadda maalmaha xorriyadda. waxaana xafladahaasi isku gaar yeela dowladda markaa talada haysa. Haddaba ma cid gaar ah ayaa leh maalmahaasi xorriyadda oo iyaga keligood ayaa ka muwaadinsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed? Maxay casuumaad ugu diri waayeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada? Mise dadka qaar ma aqbalayaan haddii la yiraahdo madaxda dalka ayaa idin casuuntay oo aad kala qaybgalaysaan xuska maalmaha xorriyadda, xitaa haddii waxa loo dabaaldegayo ay yihiin xorriyad iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed? Soomaalida waxyaabo badan ayaa isaga qaldamay tan iyo markii ay isku fahmi waayeen siyaasadda iyo awood qaybsiga. Waxaana waxyaabaha la isku fahmi waayey oo ay ahayd inaan muran la gelin ka mid ah xorriyadda, calanka, dalka iyo dadka, midnimada iyo xuduudaha. Axsaabta mucaaradka ee wadamada caalamka, si kasta oo ay siyaasadda uga fikir duwan yihiin xisbiyada talada haya, haddana waxaa jira waxyaabo aan marnaba gorgortan geli karin, sida ayaamaha xorriyadda, mowqifka qarannimada, calanka, midnimada iyo wixii la mid ah. Waayo isma quseeyaan arrimahaasi iyo kuraasta siyaasadeed ee lagu tartamayo. Waxaad telefishinada iyo jaraa'idada caalamka ku arkaysaa xisbiyo kala aragti duwan oo ay si weyn isu diidan yihiin madaxweynayaasha wadamadooda, kuwaas oo mararka qaar hawada isku marinaya hadallo aflagaada ah. Hase yeeshee, marka ay sheekadu noqoto dalka, calanka, madaxbannaanida, jiritaanka iyo xuduudaha, waxaad durbadiiba arkaysaa intii isnacabeed oo hal mowqif yeelatay, kuna midoobaysa inay ka soo horjeestaan wax kasta oo wax u dhimaya qarannimadooda. Maxay sidaa u yeelayaan? Waayo dhammaantood waxaa ka weyn dalka, dadka, calanka, midnimada iyo madaxbannaanida. Waxyaabaha kale ee sharafta u yeelaya siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee aysan ku baraarugsaneen waxaa ka mid ah inay kala saaraan xafiltanka kala dhexeeya madaxda markaa talada haysa iyo qadiyadaha muhiimka ah ee salka ku haya jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Tusaale, hogaamiyayaasha mucaaradka waxaa quman inay soo bandhigaan qodobada ay ku diidan yihiin madaxda talada haysa, laakiin markii madaxda dalka maamulaysa ay sameeyaan tallaabooyin wanaagsan, waa inay hogaamiyayaasha axsaabta kala duwan ee mucaaradku ku bogaadiyaan mas'uuliyiinta dalka hogaaminaysa tallaabooyinkaasi wanaagsan ee ay qaadeen. Waana inay yiraahdaan tallaabada ay qaaday dowladdu ee ku aadan arrinka iyo arrinka waa mid 100% aan ku taageersannahay, waana u hambalyeynaa, balse arrimihii kale ee aan ku kala aragti duwaneen weli waa halkoodii. Shacabka Soomaaliyeed ayaa iyagana waxaa laga rabaa inay kala saaraan siyaasiga ay neceb yihiin iyo qadiyadda waddankooda. Tusaale, waa inaysan madaxweyne hebel ama ra'iisul wasaare hebel dartii aysan u nacin dalkooda. Waa inaysan iyagoo ku xumeynaya koox gaar ah awgeed aysan la soo safan ama u carab laadlaadin cadowga Soomaaliyeed. Xaq bayna u leeyihiin inay muujiyaan inay ka aragti duwan yihiin kooxda markaa dalka hogaaminaysa. Dowladduna waxa ay dowlad ku tahay shacabkeeda, laakiin waa in mar walba maanka lagu hayo in madaxdu ay tegayso si walba oo ay kursiga ugu dheeraadaan. Waxa harayaase waa dalka. Daruuraha.